horeysa doorashadii wuxuu noo cadeeyay inay doorashada ka dhacayso qof iyo coda muddo kororsi wax la yiraahdaa aysan jirin waqtigii loogu talagalay in ay dhacayso haddana la sugo sharciyeedka doorashooyinka baarlamaanku waxa uu ka yiraahdo ayaa oo noqonaya dastuuri ayaan ku dhaqmaynaa xagga nin uga laxanayn waxaa tiri madaxweynaha wuxuu noo ballan qaaday in doorasho qof iyo cod ah ay dhacayso siday u dhacaysaa marka madaxweynaha fasiraad ma ka bixiyey sida ay u dhacayso iyo meelahay ka dhacaysaba arrintaa isagu shaqo kuma leh waxaa iskale guddiga qaranka oo madaxa banaana doorashooyinka meelahay ka dhacayso goobahay ka dhacayso siday u dhacayso dabcan siday u dhacaysaa waxa weeye qodobka koowaad waa qof iyo cod doorashaa oo xisbiya weeye waxa kale oo dhan waxay ku xusunaan doonaan sharciyeedka hadda baarlamaanka hor yaalla doorashooyinka iyo arrimaha technicada oo farsamada iyo meelaha iyo goobaha waxaa iska leh guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan guddiga qaranka doorashooyinka madaxa bannaan waana diyaariyeen iyagu xildhibaan zakariye waa la qaban karaa waa hadal afka baarkiisa ku eg qaabkee loo qaban xaggee lagu qaban sidee loo qaban weeyaan waxa la isweydiinayo waddanka qaar waxaa haysta shabaab kuwo way maqan yihiinba oo xiriirna kalama dhexayso dawladdii dhexe mana la tegi karo marka xaqiiqada laga hadlo meel kale iska daayay caasimadda muqdisho yaa dadka dawladda u shaqeeya ay shabaabka dilaan ay bartilmaameedsadaan idinkoo og waxyaabahaasoo dhan ee idinku xeeran suurtagal ma tahay in sanduuq inta meel la dhigo dad la diiwaan geliyo warqad la siiyo si nabada saf intay u galaan codkii dhiibtaan codkaa la tiriyo natiijo lagu dhawaaqo horta marka ugu horreysa maantaad ka hadlaysaa adigu annaguna berri baan ka hadlayna sanad iyo bar kabacdi sidaan ahaan maya dalku dawladduna inay shaqo qabataan laga rabaa oo arrimaha amniga sugto oo wadahadaladii muxuu ahay gobollada waqooyi somalilan ay furto maanta haddaad ka hadlaysid waa laga yaabaa laakiin annagu maanta ka hadli mayne mustaqbal baan ka hadlaynaa sanad ugu yaraanay ka hartay waa qodobka labaad waxa weeye dadka soomaaliyeed 30 sano oo dagaaladu socdeen waa barakaceen baadiyihii waa laga soo aruuray dad yar baa ku haray magaalaha metropolitanka ah oo muxuu ahaa waaweyn baa la wada galay barakacyaal weeye magaalay ku wada nool yihiin magaalooyinka waaweyn oo dhanna waxaa haysta maamullo iyo dawladda haysata magaalooyinka aysan dawladdu gacanta ku haynin ee ama shabaab joogaan ama dawlad goboleedyo ay dawladda dhexe iskhilaafsan yihiin joogaan maxaa laga yeeli dawlad goboleedyada iyo dawladda soomaaliya wadahadallaha u socda waana heshiinayaan sida madaxweynuhu noo sheegay haddeer baqaar baa kusoo foolay inay xamar yimaadaan waxa weeye haddaad sidaan kuu sheegay maanta ku jaangoynaysid waa laga yaabaa inay dhib noqoto laakiin annagu maanta wax ku jaangoyn mayne annagu waxaan qabnaa in la shaqaynayo doorashada la gelayo ayna dhici karto si badnaydna guddiga doorashooyinku hadda ay noo sheegeen 90% wixii technicalka ahaa ama farsamo ahaa oo dhan inay diyaariyeen bisha maarsana ay bilaabanayso diiwaangelintii codbixiyayaasha marka meel walba sanduuq lama dhigaye meelo go'an oo la cayimay unbay codbixintu ka dhacaysaa meelaha aan la dhigi karin waxaa loo samaynayaa xeerar gaar ah laba qaab weeye doorashada midna waa waxa la yidhaha single constituency midna waxa weeye state constituency single constituency waxa weeye 270 xildhibaan dalkoo dhan baa laga dooranaya meelaha ay doorashadu ka dhici karto oo dadweynaha dooranaya state constituency-na waxaa noqonaya aqalka sare oo 54 qof ah oo laga dooranayo dadka degan gobolka ay ka yimaadeen ayaa dooranaya oo keliya awal waxaa dooranaya hadda sida xaalku yahay doorashadii dadbanayd waxay ahayd xildhibaanada gobolladu inay doortaan hadda masalan ka soo qaad gobolka mudug oo kale ama dawlad goboleedka puntland oo kale ama galmudug oo kale ninka qofka ama dadka u sharaxan sanitarada waxaa dooranaya dadka halkaa degan marka taasi waa state constituency oo degaan ah tan kalena oo 270 waxay noqonaysaa single constituency nidaamkan xisbiyada cusub ee aad leedahay sanduuq baa cod lagu ridiyo qof iyo cod buu noqon 4.5 miyuusan ahaanaynin maya xisbiyo weeye 270 xisbiyaa lagu dooranayaa waxyaalaha anigu hadda ka hor dhici maayo muxuu ahaye sharciyeedkii waa lasoo wadaa ilaa isaga baarlamaanku uu si aqlabiyada ku aqbalana tafaasiishiisa lagama hadli karo laakiin higsiga iyo meesha loo socdaa iyo hayaan waa in doorasha dalka ka dhacdaa waan gartay laakiin zakariya laakiin waxay ku imaanay Soomaaliya 275 4.5 unbay ku imaanay qabiil unbu hadana ahaanay maadaama dalku dagaal galay sokeeye oo la is-aamini waayey oo dadkii Soomaaliyeed kala firdheen waxaa la isku dayayaa markasta oo sida ugu fiicana cid walba waxay inay hesho laakiin ay ku hesho can dariiq xisbi inay ku hesho